Adwa ama dagaalkii Adwa ee lagu jabiyay gumeystihii Talyaaniga oo ahaa dagaalkii iftiinka u ahaa in guud ahaanba qaaradda Afrika ay xorowdo ayaa waxa uu ahaa dagaal Itoobiya ay la gashay gumeystihii Talyaaniga ee ku soo duulay waqti xaadirkaasi in uu gumeysto ciidda Itoobiya balse qaybaha kala duwan ee shacabka dalkan Itoobiya oo afar tijaabo iskaga imaaday xilligaasna shacab u diiday in ciidooda uu gumeysto gumeysaha sida cad ugu soo duulay ayaa waxa ka qayb qaatay halgamayaal aad u fara badan hadaba halgamayaashaasi waxa kamid ah halgamayaal u dhashay bulshada Soomaalida kuwaas oo inta badan taariikhdu ay xusin waxaana kamid ah halgamayaal barnaamijkan aan ku soo qaadan doono oo kamid yahay Rijasmas Umar Samatar oo inta badan Soomaalidu ay taqaano taariikhdiisa magacayga waxa la yiraahdaa Xaaji Ciise Sheekh Umar Usmaan waxaan kamid ahay odayaasha Itoobiya ee dawladda dhexe kala taliyay xagga nabadgelyada marka dagaalkaas horta waxa weeyaan adduunyada dhan wixii og tahay waa dagaalkii u horeeyay ee nin madoobi oo nin cadaana ku jabiyay waliba waqtiga dagaalka Arwa dhacay dawladda Itoobiya waqtiga ka talinaysa dalka dawladdii Minilik ma ahayn dawlad laxaad leh oo hub iyo maarta wax badan haysata sayfi ku dagaalamayeen iyo warma iyo waxyaalo saasa marka Talyaanigii ku soo duulay gumeysiga way jabiyeen taasina waxay noqotay taariikh caalamka oo dhan laga garto inuu nin madoobi nin cad jabin kara iyo wadankiisana uu ka ilaalin karayo gumeysiga taas waa tii Afrika dhiirigelisa maartay in Afrika oo dhan marka ay yiraahdeen gobonnimaan rabnaa Faransiiska iyo Ingiriiska iyo Portugiiska iyo Isbaanishka gumeysan jiro dhan ay ku kaceen dadkii Afrikanka ay la gumeysan jiray iyagoo markaa tigsanaya dagaalkii Adwa lagu jabiyay Talyaaniga marka taariikh weyn bahayd oo maanta Itoobiya caalamka oo dhan laga yaqaano Itoobiya saad og tahayba waa dalka quraatay League of Nations markii la asaasayay dalalkii asaasi kamid ahayd ururkii la oran jiray midnimada Afrika oo imika la yiraahdo United African Union waa dalalkii asaasi kamid ah Itoobiya Pan Africanism ururkii la oran jiray waxay kamid tahay dadkii asaasay dawladihii asaasay maarta nimanka la yiraahdo adduunyada saddexaad dhaqdhaqaaqa saddexaad ee siyaasadoodu bidix iyo midig dhinacna aan raacsanayn ee dhexdhexaadka Itoobiya waxay kamid ahay dalalkii asaasay iyadii Masar iyo Indonesia iyo Yugoslavia marka Pan Africa Itoobiya asaastay in Afrikii ay xorowdo midowdo iyo ogaadaan gumeysigu wuxuu yahay saad og tahay Itoobiya qayb waxay ka qaadatay xoreyntii Zimbabwe waxay ka qaadatay xoreyntii South West Africa Namibia South Africa Koonfur Africa Angola Mozambique Guinea Bissau meelo badan bi Itoobiya ay ka samaysay dhaqdhaqaaq dadka madowga Afrikanka lagu xoreynayo ilaa Pacific ilaa meelo badan bi maarta ay gacan ka geysatay dadka madow inay xoroobaan iyo xuquuqdooda helaan marka Itoobiya taariikh dheer bi ku leedahay caalamka ururka maanta caalamka taliya United Nations waa dalalkii asaasi kamid tahay charterka dalalkii saxiixay kamid tahay waa dalka quraateen la gumeysanin ee in badan la isku dayeen la qabsado dawladda kala gooniya ayaa weeraray Itoobiya waxaan nasiib wanaaga shacbiga Itoobiya marka shacbigu wuxuu aad u ilbaxa iska celiyeen gumeysigii wadankoodii jiilkan maanta adadu kamid tahay soo gaarsiiyeen xornimo iyo midnimo
soomaalidu qayb libaax bay ka qaadatay dagaalkii Adwa sawirro badan oo imika hayo oo France laga soo diray museum ku yaala dadkii Soomaaliyeed ee ka qayb galay Adwa boqor Xayl Silaas aabihii Mukonnin iyo xaflad ugu sameeyay magaalada Harar iyagoo dabaaldegaya oo ciyaaraya ayaa sawirkan uu tusaya ayaan darasay Itoobiya ma xusto mana soo qaato waxaan u maleynayaa la awal marra Soomaalidu dhagahooda ay ku maqlaan in Adwa ka qayb galeen dagaalameen iyo xoreeyeen jiilka maanta joogay ma fahmayaan mana garanayaan dadkii hore sawi garanayaan marka dad badan oo Soomaaliyeed baa dagaalkii Adwa ka qayb galay oo hiiliyahooda dawladii Milkiis ku garab taagay waxa kamid ah dagaalkii labaad ee adduunyada markuu Mussolini Itoobiya soo weeraray Dajjazmaan Umar Samatar raxmatullaahi alayhi oo qayb libaax buu ka qaatay magaciisa waa la xusaa ugaas oogle oo ku tuso doono sawirkiisa oo faraskiisii uu ku dagaalamay dul joogo oo Itoobiya maalinna soo qaadin wuxuu kamid ahaa nimankii qaybta libaax ka qaatay Itoobiya xoreeyay Talyaaniga la dagaalamay waxa kamid ah ugaas Xuseen oo deegaanka Nageeliye deganaa oo u dhashay Mareexaan ras dasta Daamtow markuu deegaanka ka dagaalamayay isagii walaalkii 1500 oo neef oo geela ayay u qaleen haragii geela ayay kaba uga tooleen nimankii dagaalyahanka Itoobiyaanka ahaa doolow ilaa meeshii joogaan biyo uga soo qaadi jireen ilaa 5 sanadood bi hiiliyo isku garab taageen jabhadii Itoobiya u dagaalamay xornimadooda iyaguna qayb libaax bay ka qaateen ayaan daro Itoobiya ma siinin dadka soo halgamay waajibkii lahaayeen sidii loo xusay Balaay Zallaqe ama Raasababa Aragay ama ninka la yiraahdo muxuu ahaa Raas Daamtow sidii loo xusay maqaamkii la siiyay lama siinin la Umar Samatar wala Ugaas Xuseen wala Maxamed Xasan Ciido aad uga dagaalamay Baale oo qayb libaax ka qaatay Maxamed Xasan Ciido wuxuu ahaa ninkii 780 nin hal mar dagaal intuu ku qabtay ku badishay maxaabiis badan oo Itoobiyaan ah 9 nin oo Talyaaniga kamid ah Itoobiya ma soo qaado taariikhda way qarisaa waxyaalada ayaan darada aan tabanayno leenahay hana laga daayo Itoobiyaan baanu nahay wadankan xaq baanu leenahay waanu ku dhalanay waanu loogu yimid cidna ugu maanu tagin taariikhda aanu leenahayna sheega waxaan wadankan u qabanana sheega waa waxaanu maanta meel walba u taaganayno ka sheegno idinkana loo baahan inaad warfaafinta arrimahaas aad ka faafisiin deegaanka Soomaalida Itoobiyana loo baahan inuu qayb libaax ka qaato soo u muujiyo taariikhdii ummadda Soomaaliyeed Itoobiya ee halganka Itoobiya ay maartay waxay ka qabteen dagaalkii Baadhime ilaa 12,000 oo Soomaaliya ku dhimatay wax soo qaaday ma jiraan marka Itoobiya marka dagaal jirana inay noo baahato markii nabadi jirtana ilaawaan ayaan daro marka annagu ma nihin dadku soo galay maartay daaqsin ma nihin dadku yimid siyaabo kala gooniya wadanka wana loogu yimid saasan ogol lahay inaanu ku wada noolaano nabadgelyo iyo horumarka dalkan لأول مرة اسبدل إثيوبيا كدعة وحقوق مدة الصوماليد إلا هي أقون صدا شخصيا أنا روح أنوار في دولة ما أنت ضلك كتلسي رئيس وزارها
abiy madaxda ka yahay xaqii ummadda Soomaalidu ee lahayd 30 ilaa 40 wuu siiyaan qabaa meelo badan baan maanta ka muuqannaa baarlamaanka federationka madax ka nahay wasiirraalna leelahay wax badan baa isagu uu noo faasirtay gareeyay wax badanna waanu ka sugaynaa marka Ethiopia annaka dad cid ka muwaadsan ma jirto Soomaalidu wax badan ba Ethiopia u qabatay Ethiopia sayntii Soomaali u qabatay way yartahay ilaahay waxaan ka rajaynayaa inaan annakuna fahanno waajibkana saaran dawladuna ay garato waajibka saaran iyo shucuubda kale ee Ethiopia marka Adwa sharaf bi u tahay Soomaalida geeska Afrika oo dhan mustaqbalkan waxaan naawuleynaa saanu u xoreyno Adwa saanu xoreyno maaragtay dagaalkii labaad ee adduunyada aanu ula dagaalanay Talyaaniga imikana Ethiopia horumarkeeda iyo midnimadeeda ayaanu ka shaqeynaa in laga shaqeeyo waxaananu naawuleynaa hadduu Ilaahay yiraahdo in geeska Afrika la isku daro dawlad midaata laga dhigo wada noolaada oo kala qaybsigan xuduudadan beenta la qaado ninka Ethiopiankii uu Muqdisho daafaco ka Muqdisho joogaano Arsaba daafaco ka Hargeysa joogaano Gondar daafaco ka Gondar joogaano daafaco Hargeysa ka Djibouti joogaano daafaco Nageyle joogaano Djibouti daafaco taasaa dari ku jirtaa aan rajaynayna in laga shaqeeyo waxa weeyaan kililkayga waxaan farayaa horta dhowr jeer baanu kala talinoonay sameeyay museum odayaashana ururiyo taariikhda qora jaraa'idna sameeyay buwaagna qora imikana waan ku celinayaa waasadiya garaadadii iyo salaadiintu in arrinta ka shaqeyso dawladda Ethiopia waxaan leeyahay cid Soomaalida Ethiopia ka muwaadinsan oo ka Ethiopiansan ma jirto Ethiopia iyo ka badbaadiyay imikana iyo ka badbaadinaya taa inay ogaadaan madaxda Ethiopia shacbiga Soomaalida Ethiopia in isku kalsoonaadaan ee ishii ku arkayaan Hargeysa ama Muqdisho ama Djibouti ilaawaan ee wadankooda midnimo uga shaqeeyaan dhaxdooda tanaaqudka ku jirana ee dhaafaan horumarka wadankooda si cadaalad ah inay wada noolaadaan ee waxa Ilaahay siiyana uu kala qaybsadaan qabyaladan iyo waxan daciifkaana iska daayaan samadani eegayaan intii dhaafaan intii dhulka eegaan in dhulkooda ka shaqeystaan dhalinyaradan haajiraysay ilaahayga jooga Mareykan iyo jooga Ethiopia ilaahay quraata koonkan ka taliya marka wadankiina ku kalsoonaada dawladdiina ku kalsoonaada oo isgarab taago dhisa intaasaan leeyahay